sidii hadday dhacdo marta waa badhac su'aal ilaalin doona marka tuugii meesha ayuu ka fiirsanayay si adag ayaa loo ilaalinayaa maxkamadda marka maxkamadda sidii hadday oo kale ka badhacayso mudana taxadirkaaga bal si adag isku ilaali السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما تحاولين قصدنا شيء صباحا هذا يوحى جناح وين أمنا لقي يقاله ساسي تاينا وانا سوي رجري اسكرتنا وتجري maalin anaga guriga joogna ayaa TV waxaan ka aragnay nin iskariya oo la soo sheegay guri iyo gubad ninkii iskariga ahaa waa la soo qabtay xasig ayaa la keenay aabihii ninkii u shaqayn jiray oo ilaalin jiray wuxuu dhahay maxkamadda ayaa beri la kaaga baahan yahay aabihii maxkamadda markuu soo atagay tuugadii waaweynaa qarax ayay meesha ku xireen gaariyooyinkii dhow aan oolnay dadkii maxkamadaha joogay dhanna way qeylinayeen anagii hooyadan waxaa ka arknay TV-ga anaga markaa TV-ga adka wadnaha ayaa xanuunay hooyadayna xaggaasi ooyin la jiiftay markii dambe aniga waa ooyay markii dambe waxaa tagnay police stationka markii dambe police stationka ayaa ku dhahan aabahay aaway markii dambe sidii u dhahaynay mobilka ayaa soo dhacay mobilka ayuu qabtay wuxuu dhahay maxaa meesha ka dhacay malroon yahay haddana bas mobilka ayuu dhigay soo su'aalan soo hooyada ayaa ku qeyn sooyaa maxaa aabahay ku dhacay ninkeyga soo ninka dhakhtarka ayaa dhaxal ayuu ku jiraa hadda ayaa gargaarka degdeg u imaanayaan markii dambe hooyada markii intaas maqasho weyn dhaxday aabi markii dambe isbitaalka ayaa la keenay ninkii aabahay u shaqayn jiray ilaalin jirayna asagana dhaawac ayaa gaaray walaalkay iga weynaana asagana booliis ayuu ahaa aabahay ayuu ilaalin jiray asagana dhaawac ayaa gaaray walaalkayna qalin ayaa asagana lagu sameeyay hooyada ay tiraahday isbitaalka naga gaarsiisay sida ugu dhaqsiyaha badan askariga ayaa sida ugu dhaqsiyaha badan wuxuu keenay isbitaalkii waxaa ku soo oranay aabahayna lacag ayaa ka jabneed markii dambe waa ka soo baxay waxa uu imaado walaalkay waa ka soo tagay waa nafisay markaa arkay ninkii aabahay u shaqaynayay oo asagoo nool ninkii ayaa wuxuu waxay taliyihii wuxuu ku dhahay taliye intaas ayaan ugu dhacday taliyihii ayaa ku dhahay istaji anaga ayaa xalinayna ninkan ayaa ka dambeeyay in meesha la qarxiyo TV-ga ayaa waxaan ka arkay taliyihii dhahay iskarigan ayaa loo xil saarayaa inuu tuugada qabto oo dilo xabsiga oo keeno mar dambe wax ma dhacayaan maalintii ku xigtay tuugooyinkii waa la qabtay waa la dilay maalinkiista saas ayaa la sameynayay markii dambe askarti ayagoo tuugo raadinay ay xaggan soo mareen sida tuugadii labadii nin oo u tilinaysay ayaa waxay dhaheen qarax ayaa ku xiranaa meeshaas intaas ay ku tashteen kulligood labadoo saaxiib ayaan warkooda dhageysaneen markii dambe hooyada ayaa aabahay u timaaday wuxuu ku tiraahday cagta seekut oro soo soco oo cagta soo jimicsi aabahay ayaa ku dhaw baxay walaalkay ayaa markii dambe dhakhtarka ugu yeeray waxa ku hirfiin waxa ku dhacay dhakhtarka ayaa maada indhaha iyo leer u weefiyay kadibna waxa uu qoray anigana waxa ogaaday in walaalkay hadleen TV-ga ayaa aniga aabahay daarnay sidii hadday dhacdo marta waa badhac su'aal ilaalin doona marka tuugii meesha ayuu ka fiirsanayay si adag ayaa loo ilaalinayaa maxkamadda marka maxkamadda sidii hadday oo kale ka badhacayso mudana taxadirkaaga bal si adag isku ilaali aabahay markii dambe uu soo baxay si fiican ayaa loo ilaalinayay markaana aabahay anaga ayaa la soconay markii dambe meesha waxaa soo galay nin tuug ah taangiyooyin ayaa yaala xataa helicopter ayaa cirka ku soconayay dadkana si fiican ayaa loo baarayay markii dambe waxaa imaaday odayooyinkii meesha markii dambe odayooyinkii ninkii tuugada ahaa wuxuu siiyay lacag aad iyo aad u badan sidii runta u qariyaan ee beenta sheegaan markii dambe aabahay ayaa la soo istaajiyay ninkii ayaa dhahay maxaa cadeyn haysaa saa wuxuu dhahay waxaa cadeyn hayaa aniga iyo saaxiibkay marka isla soconay saaxiibo aad u qaali ahayn baaldhowt waxaa arkay saaxiibkay aad fikriya saaxiibkay maxaa kugu dhacay saa wuxuu dhahay wallaahi shaqadii ayaa iga tiro badatay gurigana howl ayaa ii taala saa ku yahay yaantaan waxaa arkay adoo tuugo kugu qaqeylinayaan oo ku haysta
wuxuu dhahay walahi anta sawa kama jiraan. Markii dambe waxaan ku yiri ayaga xataa warqad ku haysta ayaa arkay waan naxay markaas. Wuxuu dhahay aamus codkaaga ha u qaadin aamus anaa kaaga sheekeynaya. Markii dambe ayuu wuxuu ii dhahay qashada ayuu ii dhahay waa kuu sheekeynaya. Anigana waa istaagay. Markii dambe wuxuu dhahay waa ku barya ha sheegin waa kuu sheegay. Adiga waxaa ku dhahay may kuma sheegi adiga saaxiibka ayaa taasay kuu sheegaa laakiin adiga taxadarkaaga badi. Markaas aan intaa ku dhahay iyo wuxuu ii bilaabay qasadii. Xafiiska maalin kasta lacag ayuu siin jiray. Intaas markuu ku dhahay aniga waan la yaabay. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa lacag badan ayuu wuxuu ku dhihi jiray keen lacagta iska keen. Aniga waxaas ku ii sheegay aniga waan la yaabay. Markii dambe wuxuu ku dhahay lacag kuma siin iga tag. Markii dambe saaxiibkay fariin ayuu ii soo diray. Wuxuu dhahay iga soo gaar waa la diri rabaa iga soo gaar. Anigana markaa waa ka soo gaaray gaariga ayaa xoog u waday. Asxaabay qaybta koowaad intaas ku egtay qaybta labaad soo dab. Qaybta labaad saaxiibkay ayaa dhiman doona. Waa aad iyo xanuun badan tahay qaybta labaad.